warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgallo xoogan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa darawishta maamul goboleedka Galmudug ay ka sameeyeen deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug. howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah lagu bartilmaameedsaday fariisimo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi. qoraal ka soo baxay militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkan ugu dambeeyay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa darawishta maamul goboleedka Galmudug ay ka sameeyeen deegaanadaasi lagu qaraajiyay in ka badan 30 ka mid ah ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay militariga Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu xusay in howlgalkan lagu diray horjoogayaal ay ka mid yihiin Maxamed Bashiir Muuse iyo Maadi Foodey oo ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa sameynta iyo qarxiyada miinooyinka. howlgalladan ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa darawishta maamul goboleedka Galmudug ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor halkaas dagaal xoogan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen ayagana ka sifeeyay isla markaana ka saaray deegaano fara badan oo hoostaga deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalkan ka dhanka ururka Al-Shabaab tan iyo inta ay ka saarayaan deegaanada iyo sidoo kale tuulooyinka ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka Mudug.